Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelkayga Mutan Somali Food waxaan inoo wadaa maanta video cusub oo ka mid ah fiidiyoyada lagu talagalay taxanaha bisha barakeysan ee Ramadaan raali noqdo maalmahan way yara mashquul fiidiyoo ma soo galin laakiin insha Allah imika inta Ramadaan ka hadhay waxaan isku taxaluujinaynaa fiidiyo maalin walba idin soo geliyo cuntada quruxda badan aad arkaysaan maanta idin wadaa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan intaanan fiidiyowga guda galin haddii aad channelkayga ku cusub tahay fadlan subscribe ii saar haddii kalena ehelkaaga asxaabtaada la sii wadaag cuntada seen u sameeyno waxaan u baahanahay hilibkan maanta isticmaalaya waa hilib suqaar ah 1 kilo sidoo kale 2 milqacdood oo toon ah iyo in yar oo milix ah waxaan xagan ii yaala waa green beans ka waa ka diyaarka ah qasaacada ku jira sidoo kale 2 xabo oo tamaandho ama yaanyo aan soo jarjartay iyo in yar oo barbarooni nooca cas ayaan isticmaalaya maanta hadduu midabada kale ku yaalaana dib ma laha waa caadi sidoo kale xabad basal oo weyn haddii kalena 2 xabo oo size-ka dhexe ah ayaad isticmaali kartaa waxa ugu horeysaan u baahanahay inaan cuntadan sameeyno waa obviously saliidan isticmaalaya waa olive oil saliid caadiga ana waa isticmaali kartaa waxa aan ku darayaa nus kilogeygii hilibka aan soo jarjaray ama hilibka sida suqaarka aan u soo yaryareeyay oo kala ah dabkana ha ka khafiifinin hana ku badinin dab medium ah ama dhexdhexaad ayaad ku sameynaysaa hilibkayga markuu ii soo yara jilcay waxa aan ku daray basashii aan soo jarjartay sidoo kale waxa aan ku daray tamaandho 2 xabo tamaandho aan soo jarjaray in yar oo kaarooya ayaan u dhex raaciyay oo aan ku daray waanad ka reebi kartaa waa optional anigu kaarooga waan jecelahay inaan ku darsado waxyaabaha aan sameynayo waxaan kaloo ku darayaa imika waxa weeyaan green beanski ama yani beanski cagaarna waa nooca diyaarka ee reediga marka dab badan ma qaato marka waxyaabahayga kale marka ii soo bislaadeen sidii hilibkii oo kale ayaan dusha kaga sii daray waxaan ku darayaa imika waxa weeyaan in yar oo xamar ah ama tamarind qiyaastii meelaha milqaacad in leeg ayaad ku daraysaa hadduu ilaahay yiraahdo imikana waxaan ku darayaa in yar oo filfil ah iyo milqaacad toon ah iyo 2 milqacdood oo toon ah actually iyo in yar oo milixa haddii aad jeceshahay inuu kuleyl ku noqdo taakoskaaga waxaa ku darsan kartaa basbaas ugu dambeyn waxaan ku darayaa tamaandhadii maadaama ay tamaandhadu waqti badan qaadanin dabkuna waa dab medium ah mana gaabna xoogna uma yani hooseeyo maasha Allah tabaaraka raxmaan waan isku yara daboolaya inta isku yara huurayso bas way bisashahay inta ugu adag waxa weeyaan marka aad hilibka sugayso inuu ku jilco laakiin inta kale oo dhan waa wax fudud weeyaan cuntadeena udgoon macaan maasha Allah tabaaraka raxmaan way soo yara qabowday imikana waxaan bilaabayaa inaan sharaxo waxaan isticmaali doonaa insha Allah saad arki doontaan tacos shell waa noocyada diyaarka ah aan dukaanka ka soo iibsaday marka qofka jecel inuu tacos ka sameeyo ama standard stuff bay dhahdaan noocyadaas ayaad soo iibsanaysaa dukaanada waxaad ka helaysaa caadiga ah sida Asda Tesco qaybta Asianka ayaa badanaa laga helaa waxyaabahan oo kale taakoska noocan isticmaalaya waa noocan waxa la yiraahdaa stand and stuff yani waa nooc jilicsan yahay waxa la yaalo waxa doonto ayaad ku goranaysaa oo stuff kaga dhigaysaa ama aad ku buuxinaysaa waxaan ka soo iibsaday anigu asdan ka soo iibsaday laakiin any dukaan waad ka helaysaa kuwan marka waxa weeyaan iyagii waxba wadan oo empty oo waxa weeyaan 12 xabaan u maleynaya mini waxa yaala dukaanada iyagii already wax ku jiraan laakiin kuwaas ma fiicna maadaama aad garaneyn inay yani xalaal iyo xaraam wixii ku jira ay tahay iyagoo maran anigu soo iibsadaa filinkana aniga ayaa sameeysta sidaan imika idin la wadaagay
dusha waxa aan kaga darayaa saladka noocyadan waa olive salad caadiya in yaroo chili cucumber oo nooca kulula ama aan isticmaali hadii la rabo waxyaabo kala duwan idinku aad jeceshihiin aad isticmaali kartaan sidoo kale sauce-kaas noocaas ayaan isticmaalaa khasab ma aha in isticmaasho waxaan isticmaaliyo laakiin yani waxyaabo kale oo adiga ku cajabiyo dushood ka saaran kartaa haddii aan saladkii waxyaabaha jeclayna sida ayaad ku cuni kartaa laakiin yani aniga balance ay ii sameynaysaa wayna sii qurxinaysaa maasha Allah tabaaraka raxmaan waxaan rajeynayaa inaad fiidiyowgan insha Allah sii daawan doontaan asxaabtana u sii gudbin doontaan bariyahan saan hore idinku sheegay waan idinka yara mashquulay ramadaantu yani subxaanallah waqti cibaada weeyaan marka way ii suuragali wada inaan fiidiyowada editing idin sameeyo marka maanta ayaan chance helay inaan fiidiyowgan idin soo geliyo insha Allah waxaan rajeynayaa fiidiyowgan inaad yani like badan ii saari doontaan comment aad ka bixin doontaan ra'yigiinu mar walba muhiim ayuu aniga ii yahay marka aan fiidiyowyada sameynayo waayo badana commentiyada markaan akhriyo waxaan eegaa waxyaabaha ay dadku jecel yihiin fikradna waxa iga siisaa fiidiyowgayga kale ee soo socda waxa uu noqon doono marka aad ayaan mahadsantihiin maasha Allah tabaaraka raxmaan cuntadeena sidaas ay soo baxday اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار إلهي أنت هيستنا أسيادة وبركة أنت أن هيسنا إلهي وسي أنتني إنك بدنبا هذا يدوم هالسنتي صد مروة بإيدي رجالسان سبوتك aad ii tustaan idinka la'aantiin heerkan maanta taaganahay ma soo gaareen insha Allah inta rabadaanta ka dhimanna waxa aan isku taxaluujin doonaa in fiidiyowyo kale oo badan idin soo geliyo hadii Allah awoodale uu ii suura geliyo inta fiidiyow kale ku kulmi doono waxaan idinkaga sii tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya naftaada adaa hogaansha adaa haya keenadeeda halkaad u jihaysa weeye kun haybood noloshu weeye kun hawlood baa ku xeeran kun bay hakisaa dharaarba kun bay si hagaajisaaye haddaad ku hungowdo kaalin hareer kala soo tijaabi